بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan kusoo guda jirnay barnaamijkeeni ahaa nuxurka soonka. maanta waxaan gelaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo darsiga 11aad. waxaan ka hadli doonaa waxyaalaha qofka saa'imka loo sunneeyo oo sunnada ah oo laga rabo inuu la yimaado إن شاء الله تعالى مندوبات الصائم أما مستحبات الصائم وحيالها الله سنة يقفك الصومن وأن قاعدنا إن شاء الله هدول هاي وحكمل وحيالها الله سنة تعجيل الفطر أيا كمدة إنه أفرك ددتشيو أفركي إنه ددتشي أيا كمدة ومعناها وهري وأفره صايا كمدة. حديث ورني بخاري مسلم ورنيان أن سهل ابن أبي سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. حديث اللي قولني أصحابي اللي أورنتري سهل بن سعد الله كرر النقضي وحي رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحيري تدكو كما الزوليان أنا خير كوسوغيه ما عجلوا الفطرة أنت أفرك ددتشنيا يعني تدكو أنت أفرك ددتشنيا خيري وانا أي كوسوغيين أي رسولك صلى الله عليه وسلم. marka xadiiska waxa laga qaadanayaa afurka oo la dedejiyo in wanaag badan iyo khayr badan ku jiro. marka waxa wanaagsan qofku marka kuwaad inuu ku afuro timir iyo xoogaa biyo ah kadibna salaadiisa maqribka uu iska tukado kadibna cuntadii uu cuno saasa qurux badan. xadiis laga warinayo ibn Hibban bi isnaadin sahih annahu sallallahu alayhi wasallam rasuulku kana wuxuu idha kana sa'iman lam yusalli hatta yu'ta bi ratbin aw ma'in فيأكل أو يشرب. ابن حبان حديث الصوصار يحيي رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها مركو أسومي هاي ما أتوكن جرين يعني مركو حلقة أفرق لقارو إسلا مركو يسلا دم قل جرين وحو سمين جرين مركو هوري وحلو لي إيمان جرين فيؤتى برطب رطب واتمرت من جدا قويم وي مركو سأد أسي بسلام ويتمرت بلو لي رطب قاسا لو لي إيمان جرين إيو حوغا بياه markaasuu cuni jiray oo cabi jiray timirtana cuni jiray biyahaasna cabi jiray kadib salaada gali jiray. wa idha kana fi ash-shitaa'i lam yusalli fana'tihi bi tamrin aw ma xilliga shitaha marka lagu jiro kuleelaha sidoo kale rasuulku horay salaada kuma gali jiray waxaan u leeyahay jirnay bay asxaabtu leeyihiin bi tamrin timir ama biyo. marka xadiiska waxa laga qaadanayaa inay fiican tahay qofku intuu tukan marka hore inuu xoogaa yaro timir iyo biyo iyo isticmaalo kadibna salaadiisa iska tukado kadibna oo marka uu cuntadii caadi u cuno. okay marka sunnada koowaad waxa weeye waxyaalaha la sunneeyo waxaa kamid ah kowka ah afurka oo la dedejiyo laakiin qofku waa inuu xaqiiqsado in qoraxda dhacday hadda iska afurtid waxaagu soonkaagu wuxuu noqonayaa baatil ayuu noqonayaa. rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri idha aqbala al-laylu min haahuna wa adbara an-naharu min haahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im. يعني habeenkii markuu xagga ka soo qaabilo waa dhinacaas qorax u dhac weeye maalintina ay daba jeediso dhankaas ay u daba jeediso ay qoraxdu dhacdo wa qarabat ash-shams rasuulku sallallahu alayhi wasallam ay qoraxduna dhacdo faqad aftara as-sa'im saayimku marka waa afuraya. marka maxaa la rabaa inay qoraxdu dhacdo la rabaa oo xilliga afurka in la gaaro baa la rabaa qofku inuu xaqiiqsado in qoraxdu dhacday marka kadib uu afuri karaa. يعني ما هنا ترى فدرك هلا الدكتور رسولك يري مركز قرحة عن إسكاب فرتوا خلدوا. أوكي. وحا كم إذا صنياش وحا كم إذا سحورته كم إذا قفك إنه سحورته وحا كم إذا صنياش قفك الصائم كحيرها الله صنيا كم إذا ومهم جدا قفك إنه سحورته. حديث أي صوص عريان بخاري مسلم ولا قوري أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيري تصحروا فإن في السحور بركة. رسولك وحيري سحورته محايا لي سحورته بركة إياه كجرت أيها رسولك صلى الله عليه وسلم. مركا إن سحورته وأهرمنا يسوي وكم إذا صنياشة قفك الصائنك أو صومن وحيالها صنياشة أو لا صنية أي كميت. سيدوك الرسول وحيري صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رسولك وحيدي
farqiga u dhaxeeya soonkeena haddaan nahay muslimiinta iyo soonka dadka ahlu kitaabka ah waxa weeye aklatu saxr, macnaha waa cunada la cunayo xilliga hiraabti ah, cuntada la cunayo baa inoo dhaxaysa. marka saa darteed maxaa laga rabaa qofka muslimka ah inaad suxuurtid ayaa laga rabaa. xadiis kale oo laga warinayo, xadiiska marka hore waxaa soo saaray muslim baa soo saaray iyo abu daa'ud iyo tirmidhi. xadiis kale oo laga warinayo saciid al-khudri radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wasallam, rasuulku sallallahu alayhi wasallam qaala wuxuu yidhi as-suxuuru barakatun falaa tadcuuhu walow an yajraca axadukum jurcatan min maa'in faina allaha caza wajalla wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin. rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi suxuurtu waa barako, falaa tadcuu, marka suxuurta ha ka teganina, walow an yajraca axadukum jurcatan mima, qofkiin hadduu doono kabayro biyaha saa oo ka badee, kabayro biyaba ha ahaatee, war suxuurta ha ka tegina oo la imaada. okay, maxaa yeelay rasuulku sal ly slam fa ina allaha caza wajalla, ilaahay caza wajalla wa malaa'ikatahu iyo malaa'igtiisu yusalluuna cala almutasaxariin, waxay ku sallinayaan oo u ducaynayaan dadka suxuurta. marka qofka suxuuranaya ilaahay iyo malaa'igtiisa ayaa u ducaynaysa, marka yaa maxaa ka fiicantay malaa'igta ilaahay kuu duceeya, wax ka wanaagsan baa jiraata. xadiiska waxaa soo saaray axmed baa soo saaraya, musnadka ayuu kusoo saaraya. waxaa ka mid a waxyaalaha loo suneeyay qofka saa'imka, waxaa ka mid a ta'khiir waqt suxuur, ta'khiir waqt as-saxuur bifatxi siin, saxuur wey, ta'khiir waqt as-saxuur, waqtiga saxuurta oo la dib dhigo ayaa ka mid a. okay, kaana sala allahu alay wasalam yaquulu, rasuulku waxaa mid ahaa laa tazaalu ummatii bikhayrin maa cajalu lfitra wa akharu saxuur. wuxuu yidhi ummadaydu kama zuulaysa inay khayr iyo wanaag ku sugan tahay inta ay dib dhigayaan, inta ay dadejinayaan afurka, wa akharu saxuur, saxuurtana ay dib dhigayaan. marka saxuurta oo la dib dhigana wanaag badan iyo khayr badan ayaa lagu sheegay, rasuulku sheegay sal alay slam. xadiiska waxaa soo saaray axmed binu xambal fi lmusnadkiisa ayuu kusoo saaraya. hala dib dhiga maxaa laga rabaa? inuusan waagiga kugu baryin baa laga rabaa, waaga intuusan baryin ka hor inaad waxaaga dhamaystaa laga rabaa, waaga hadduu kugu baryo waa joojinaysa. okay, waxaa ka mid a waxyaalaha sunayaasha qofka saa'imka ah, waxyaalaha loo sunaya waxaa ka mid a alfitru cala tamr, qofku inuu ku afuro timir ayaa ka mid a. xadiis uu warinayo salmaan ibnu caamir addabi annahu sala allahu alay wasalam, rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa aftara axadukum falyuftir cala tamrin fain lam yajid attamra facala almaai faina almaaa tahuur. akhrajahu abu daa'uud watirmidi wa qaala xadiithun xasanu saxiix. rasuulku wuxuu sal ly slam qofkiin hadduu afurayo ha ku afuro timir, hadduu timir waayona biyaha ku afuro, maxaa yeelay biyuhu waa tahuur, waa daahir wey. xadiiska abu daa'uud iyo tirmidi waa soo saaray, waana xadiis xasan oo saxiix. waayo maxaa yeelay timirta wax badan, fawaaid badan baa ku jirta. qofka waxaa usoo noqonaysa awooddiisa o dhan bay usoo celinaysaa, waxay dilaysaa bacteriada o dhan bay dilaysaa, jirka ayay awood u yeelaysaa. waxa weeye waa fawaakih, waa qado, waa dawo, waxyaala badan wey. marka saa darteed timirtu qofku inuu ku afuro ayaa loo suneeya. sunayaashu aad bay u tiro badan yihiin, inta kale dib baan kaga dari doonaa insha allah hadduu ilahay idmo. maanta intaasay noogu joogaysaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.